بسم الله الرحمن الرحيم جمعة وناكسن مقعيقو ومولد حاج عبدي برنامجك ورارك مانتا وقردو سوغري دونا qodobada aan idinkugu hayno waxa kamid ah Soomaali badan ayaa lagu soo waramaya in lagu qabqabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halkaasi oo maamulka Mareykanku ay ka wadaan tilaabooyin lagu qabqabanayo dadka soo galootiga dadka soo jeeda Mexico iyo El Salvador ayaa iyaguna la sheegaya in la qabtay sida ay sheegayso waaxda amuuraha gudaha ee dalkaasi Mareykanka isla wararka Mareykanka taliska ciidamada ayaa war ay soo saareen goordhaweyta waxay ku xaqiijiyeen in xalay lagu beegsaday xeebaha Pacific-ga doon la sheegay inay siday daroogo wasida dalka loo dhigay dhimasho ayaa laga soo warinaya halkaasi ugu yaraan 4 qof ayaa la dilay wararka kale aan idin hayna waxa kamid ah Hamas ayaa la sheegaya inay adkaysay ammaanka mas'uuliyiinta dibadaha ku nool iyadoo laga cabsi qabo falal mu'aamarad iyo khaarajina oo Israa'iil ay samayso taasi oo ku wajahan carqaladaynta wajiga labaad ee heshiiska xabajoojinta ee Mareykanka Gaza mas'uuliyiin ka tirsan ururka Hamas ayaa xaqiijiyay inay ku jiraan feejignaan iyo heegan isla markaas la qaaday tilaabooyin dheeraad ah haddaba maxay yihiin tilaabooyinka la qaaday ilaa iyo hadda ardii faahfaahin doona gudaha Israa'iil waxa ka taagan hadalhayn iyo dood ku saabsan dilkii Yasir Abu Shabaab nin hogaaminayay maleeshiya Falastiiniina oo Israa'iil ay ka aasaastay Mareykanka Gaza waxaana la sheegayaa dilka ninkan in uu araxda ka jibiyay mashruuc Israa'iil ay ku doonaysay Mareykanka Gaza inay ka dhisto maleeshiyad lagu bedelo ururka Hamas laakiin hadda waxa la leeyahay arintaasi waxay dhalisay walaac weyn gudaha Mareykanka Gaza dabaaldeg ayaa ka socda oo lagu dabaaldegayo dilka ninkan qoyskiisa ama qabiilkiisa ayaa waxay sheegeen in ninkan goor hore ay dayriyeen isla markaasna uu khiyaameeyay dadka Falastiiniyiinta iyo waliba sidoo kale qabiilkiisa ruushku markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay wararka sheegaya in saldhig military uu ka sameysanayo xeebaha badda cas ee waddanka Suudaan dhamaan wararkan iyo waliba warar kale oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka oo goordhow soo gali doona haddii alla idmo soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Qibla Homes ugu tag guryo casri ah iyo qiimo macquul ah dhismayaasha Qibla Homes waa Turkish style casri ah waxaana loo dhameystiray wax kasta oo guri casri ah u baahan yahay waxaana shirkaddu ay kugu baaqaysaa qiimo dhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood wixii inta dheer waxa aad la xiriirtaa maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liban Ali adigoo u sii maraya nambarka shaashada saaran waa Qibla Homes iyo qiimo macquul ah